بسم الله الرحمن الرحيم فيديوغان waxaan uga hadli doonaa fikirka ganacsi si loo tijaabiyo ama hadii ay aragti ganacsi kugu soo dhacday si ku ogaa kartaa inay shaqay doonto in kale dunida waxa la qiyaasaa waxa sanadkii la sameeyaa 150 milyan oo raay ganacsi la sameeyaa taasoo macnaheedu uu yahay maalinkii waxa la sameeyaa 137,000 oo raay ganacsi la abuuraa 123,300 way fail garoobaan waxa kaliya guuleysata ama waxa ganacsi noqoto oo shaqaysa 13 kaas kun 90% kamid ah 90% way guul dareystaan 10 kaliya waxay u gudubtaa sanadka kale si arrinkaas aan u xaqiijino context-ga ama waaqica Soomaaliya si uu waafaqayna oo xaqiijin waxaan wareysanay 100 qof aan ka soo aruurinay data waxaan weydiinay fikirka ganacsi ay iga qabeen inuu guuleysanayo kalsooni intay ku qabeen waxay cadeeyeen inay 100% kalsooni ku qabeen waxa weydiin si ku ogaadeen in ra'yigan uu ra'yi fiican ahaa 130 ilaa waxay yiraahdeen saaxiibada iyo familka noo xaqiijiyo oo nagu dhiirigeliyo 168 waxay yiraahdeen fikirkan fikir lamid ah wuxuu ka shaqeeyaa wadamada dunida kale waxa weydiin sababaha ay guul dareysteen 148 waxay yiraahdeen waxay u guul dareysteen sabab la xiriiro in ay waayeen lacagta ay ku maamuli lahaayeen 140 waxay sheegeen waxa ka niyad jabiyay bulshada 112 waxay yiraahdeen waxay ogaadeen in fikirkan fikir lamid ah uu hore ugu jiray suuqa ugu jiray waxaan baarnay interaction-ka ka dhaxeeya waxa la yiraahdo si sababahaas aan u ogaano 73 dadkii dhahay fikirkan adduunyadu ka shaqeeya fikirkan uu fiicnaa oo saaxiibadan ugu dhiirigeliyay waxay waayeen lacagta ay ku maalgelin lahaayeen businesskaas 157 dadkii dhahay fikirka inuu fiican yahay waxaan ku ogaanay dunida kale uu ka shaqeeyaa waxay cadeeyeen inay ka niyad jabiyeen saaxiibada ay ka niyad jabiyeen interaction-ka ama xiriirka sababahaas ka dhaxeeya wuxuu cadeynaa mid kamid ah sababahaas inuusan ahayn sabab weyn oo loo guul dareysto haddaba maxaa keena in ganacsiyada ama fikrada ganacsi ay guul dareystaan ama ay shaqay waayaan waxa sabab u ah leeyahay marka koowaad waxa kala duwan waxa qofka uu jecel yahay iyo waxa xaqiiqada ah ee suuqa ka jira waxyaabaha qofku uu jecel yahay waxay ka yimaadaan ama waxa sharaxa waxa la yiraahdo law of attraction waxa develop gareeyay Napoleon Hill wuxuu sheegay maskaxda bini'aadamka waxay u qaybsantaa 3 qaybood qaybta kore ee maamusha fikirka iyo waxa isbarbardhigga iyo rationalka waxa la yiraahdo waxa loo yaqaanaa conscious mind qaybta hoose waxa la yiraahdaa subconscious mind waxa subconscious mind-ka ku jiro qayb la yiraahdo waxa la yiraahdo paradigm-ka waa programka qofka uu ku shaqeeyo qofka markuu yar yahay ama cunuga inta uu korayo qaybta koowaad ee maskaxda waa furan sida darteed wax kasta oo maqlo iyo wax kasta oo loo sheego waxay aadaan subconscious mind-ka waxay ku shaqeysaa program la yiraahdo paradigm-kaas wuxuu sameysmaa cunuga intuu yar yahay wuxuuna ka yimaadaa gener wax qofka uu dhaxlay ama environment-ga ama deegaanka uu ku soo koray waa sababta loo dhahaa insaan ibn al-bi'ati iyo sidoo kale dadkii wax la soo bartay sida darteed waxyaabaha uu qofka jecel yahay ama la wanaagsan intooda badan inay saxan yihiin maaha ee wax sameysmay inta cunuga qofka uu korayo ama uu yara salahan hadii qofka uu ka yimaado family ay qiimo weyn lacagta ama ay la leedahay sheekadiisa waxay u badnaa doontaa lacag hadii uu ka yimid family ahlu diin ama culimo la xiriir sheekadiisa waxay u badnaa doontaa diin iyo wax la xiriir law of attraction wuxuu sharaxaa waxyaabaha qofka soo jiito ama emotionkiisa ama jaceylkiisa la xiriiro waxay keenaan wax la yiraahdo blind spot waxa waaye wax aadan arki karin laakiin ay kula tahay inaad arkayso su'aashan ka jawaab hadii xisaabta ku fiican tahay kale ka soo qaad diyaarada awooday waxa diyaaradda saaran 3 qof daadiisu ay tahay 15 qof daadiisu ay tahay 20 iyo qof daadiisu ay tahay 25 haddaba waxa xisaabtaa da'da waxa xisaabtaa bayloodka xisaab da'da bayloodka waa adiga sababtoo ah su'aasha waxaan ka bilaabay diyaarada adiga wadi laakiin inaan number isku sheegay waxay qofka ka indhasaabayaan inuu fahmo ama uu analyze gareeyo in su'aashu ay ka bilaabato diyaarada adiga wadi blind spot-ka waxa lagu yiraahdaa psychology-ga Anton syndrome waxay ka timid Dr. Anton
oo ahaa dhakhtar neerfaha ku takhasus. Anton waxa maalmaha kamid u timid haweeney indhala laakiin aan aaminsanayn inay indhaladahay oo qolka ay ku jirto uu mugdi yahay bas. waxay isku dayday inay ka jawaabto su'aal kasta oo la xiriira ama tijaabo kasta oo la xiriirta in indha ay leedahay in kale lagu ogaanayo. sidaas la mid ah dadka markii ay fakarka qofku u wado uu jecel yahay waxa adag inuu ka ogolaado in su'aal laga weydiiyo ama inuu ku sameeyo analysis. waxay la tahay inuu arkayo ay u saxan tahay laakiin ay sababaha wax kale yihiin sida inuu lacag waayo ama in niyad jabiyo kale. laakiin marna qofka ma aamino in marka koowaad fakarku uu sameeyay uusan ahayn fakar qurxoon oo shaqay karo uusan ahayn. qofka inaan loo sheegi karin in fakradihiisa uu ku laabto waxay ka timaadaa leeyahay laba meelood oo ah kalsoonida qofku uu isku qabo iyo xirfadda uu leeyahay. Adam Grant wuxuu ku sharxay bogan Think Again leeyahay in labadaas in la balance gareeyo ay tahay si qofka uu fakarkiisa ama waxa uu aaminsan yahay uu falanqeeyo ama inuu ka fiirsado u baahdo. waxaa yiraahdaa haddii qofka kalsoonidiisa ay aad u fara badan tahay laakiin xirfadiisu ay hooseyso waxa ku dhaco wax la yiraahdo under quarterback effect. haddii xirfadiisu ay aad u sareyso laakiin kalsoonidiisa ay hooseyso waxa ku dhaco wax la yiraahdo imposter effect. labadaba wax wanaagsan ma waxa sax ah in kalsoonida iyo xirfadda la balance gareeyo. sida darteed wuxuu qofku markaas joogaa wax la yiraahdo confident humility zone waana marka qofka inuu wax iska fiiriyo oo analyze gareeyo afkar kale ka raadiyo uu u baahan yahay. fakar ganacsi inuu shaqeeyo ma u baahna in afkaar aad u qurux badan uu ku dhisay. ninka la yiraahdo Clymer White wuxuu asaasay company magaciisa la yiraahdo OCDA. company-gaas wuxuu ka shaqeeyaa wuxuu qabtaa cabashooyinka. haddii qofka madaxda ku ah ama meesha ka shaqeyso qofka madaxda ka ah ama booska ku ah cabasho ka qabto waxa uu sheegaya company-gaas uu sheegay ayaga waxay imaanayaan meesha ka shaqeyso waxay sheegayaan cabashada qabtay u sheegayaan ayagoo magacaaga aan sheegay. fakar business hadda shaqeeyo oo xafiisyada oo dad ay u shaqeeyaan uu noqday inta badan. laakiin dadka Soomaalidu waxay sameeyaan markii fakarka ay generate gareyn ama ay fikrad sameeyaan kaliya waxay u sameeyaan magac iyo loogo and then inuu business ka shaqeynayo la tahay. saaxiibkay Cabdirasaaq Garaad wuxuu haystaa waxa computerka ugu jiro 100 magac iyo 100 loogo inkastoo hadda uu sameeyay mid Helen Laundry la yiraahdo oo aaminsanahay in lagu sameeyay ay ku dhisan tahay fakar aad u fiican ay ku dhisan tahay. laakiin business-ka kaliya uma baahna ina looga iyo ganacsi u sameeyay wuxuu u baahan yahay ina analysis geliso midka aan leeyahay hadda wax Garaad uu sameeyay. ninka la yiraahdo Ralph Litton oo ah nin dadka u tababara ganacsiyada iyo waxyaabahaas entrepreneur mentor la yiraahdo wuxuu sheegaa dadka markay rabaan ganacsi inay sameeyaan waxay ka bilaabaan su'aalo waxay isweydiiyaan aan sax ahayn oo la yiraahdo backward questions. wuxuu qofku isweydiiyaa maxaan rabaa inaan noqdo maxaa aniga ku fiicanahay. wuxuu qabaa Ralph waxay qofka inuu isweydiiyo dadka problemka ay qabaan maxaa waaye aniga sasee maxaan ka caawi karaa dadkaas. markaas uu qofku wuxuu sameey karaa fikir ganacsi uu abuuri karaa. dadka problemka ay qabaan si ay u xalliso saddex waxyaabood ama saddex su'aalood u baahan tahay inay isweydiiso. su'aasha koowaad waxa la yiraahdaa level of pain. problemka dadka ay qabaan xanuun intee la uu dadku ku hayaan. su'aasha labaad waxay la xiriirtaa dadka xanuunkaas uu qaba ama problemkaas haysta tiradooda intee la egtaa. su'aasha saddexaad waxay la xiriirtaa awoodooda wax gadashada meeqay wax ku gada karaan dadka. tusaale haddii aad daawo u keeni karto xanuunka AIDS oo HIV-ga la yiraahdo xanuun aad dadka ay u dhintaan oo dib weyn ku hayo business laakiin waxaan looga sameey karin aysan ba u dhicin in laga sameeyo daawadiisa ganacsi laga sameeyo waxaysan u dhicin. dadka qaba waxa lagu sheegay tiradooda eber 6% lagu sheegay tira aad u hooseysa. daawada AIDS-kan waxay qofka ugu kacay 15,000 ilaa 20,000 dollar. sida darteed dadka qaba faqri u badan yihiin mana gada karaan. waa mid keentay in kambaniyada daawo sameeyo oo ganacsi fiican haysta ay jiraan. dadka qabo daawooyinka oo qofka badbaadinaya oo la noolaa karo inta badan hay'adaha iyo dawladaha ka bixiya lacagta qof caadi oo gata ma jiro. ina kaliya soo faham problem uu jiro oo problemkaas xalli karta kaliya ganacsi kuma filna. sida waa ina ka fikirtaa yaa ku target yaa rabtaa ina wax ka gado awoodooda wax gadashada intay leegta. problem kaliya ganacsi ma abuuri karo. su'aal ninka la yiraahdo Charles Darwin wuxuu sameeyay kuraasta xafiisyada ee lugaha leh ninka alifan waxay qofka kursigaas ku fadhiyo uu ogolaanay inuu meel u dhaqdhaqaaq karo. laakiin problem weyn dadka maadaama aysan ku qabin Darwin muusa ka sameeyay ganacsi macna la ka muusa sameeyay kursigaas.
haddaba marka haddii aad rabto inaad ganacsi abuurto fikirkaana aad rabto inaad tijaabiso waa inaad ogtahay ama ka fikirtaa problemkii xaline yuu haystaa problemkaas awoodooda waxgadashada intee la egta kadib waxaa u baahan tahay 3 waxyaabood inaad samayso waxa la yiraahdo market research ama market analysis suuqa aad rabto inaad gasho duruufta ka jirta suuqaas yaa ka tartamo hadda dadka tartamo problem noocay ku qabaan dadka suuqa hadda wax ka gata problem noocay ku qabaan adan inaad samaysid waxa la yiraahdo financial plan oo haddii xataa hal sano aan wax laga gadan meeqa suuqa ku sii jiri kartaa xagee ka keenay lacagaha aad ku bixi doonto kirada iyo waxyaabaha la midka qiimada saddexaad waa differentiation waxa la yiraahdo maxaa uga duwanaa doontaa dadka hore ee suuqa ku jira intaas waxa u baahan tahay analysis inaad samayso si aad u abuurto fikir ganacsi oo shaqeeyo intaas aan ku soo gabagabaynaha waa mahadsantiin